رمضان أقبل يا أولي الأحلام رمضان أقبل يا أولي الأحلام فاستقبلوه بغاية الإكرام رمضان شهر تلاوة وتهجد وتصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد كلمتنا maanta waxay ku saabsantahay walaalayaal lix talo oo aan u jeedinayo gabdhaha markaasi ku mashquulsan afurka iyo suxuurta bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro iyo waliba sidii ay isugu wadi lahaayeen hawsha guriga iyo markaasi cibaadada maadaama ay tahay bil markaasi aad u fadli badan. Talada koowaad waxay tahay aan siinayo gabdhaha in markaasi afurinta dadka sooman ee ajir ka helayaan arintaasina ay u niyeystaan ajir. waa talada koowaad. talada labaad ee aan siinayo waxay tahay in markaasi cuntooyinka caafimaadka wax u dhibayo haddana waqtiga badan ka qaadanayo in markaasi ay iska yareeyaan. talada saddexaad ee aan siinayo waxay tahay in markaasi ay iska yareeyaan alqiil walqaal iyo waliba xanta isku dirka iyo waxyaabaha la midka ah. runtii qodobadaasi ama hadalada maaragtay xanta isku dirka maaragtay waxa ku badan dumarka ayaa ku badan. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. qofkii aan ka tagin hadalka xun iyo ku amal falkiisa ilaahay wax dana uu ka leeyahay malahan in markaasi uu ka tago cuntada iyo cabitaanka. talada afraad ee aan siinayo waxay tahay in markaasi sadaqada ay ku dadaalaan. nabigu wuxuu ahaa mid deeqsi ah bisha Ramadaan. kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada wa kaana ajwadu ma yakunu fi Ramadaan. rasuulku wuxuu ahaa mid deeqsi ah wuxuuna ugu deeqsisnaa Ramadaan markii lagu jiro. sidoo kale nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam ya ma'shara an-nisaa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. dumarow wax sadaqeesta waxaan idin arkay ina u badan tihiin naarta. runtii naarta waxa ragga iyo dumarka waxa ku badan dumarka. wama lana ya rasuulallah akthar ahli an-nar. maxaan ugu badanay ay dhahan rasuulka Allah naarta oo dadka ugu badan aan noqonay. nabi wuxuu yiri takthurna al-la'na wa takfurna al-ashir. waxaad badisaan caayda maaragtay isku dirka qiibada waxyaabahaas ayaad badisaan sidoo kale waxaad ku gaalowdaan zawjka. runtii sadaqada waxa laga yaabaa qofka inuu is yiraahdo sadaqada markii meel fog inuu ka fakiro oo lacag ma haysatid ama waxyaabo isticmaala. runtii sadaqada waxa noqon karo timirta xaafada ku taalo ee aad qof sooman ku afuriso waa sadaqo. timir gabalkeed xataa waxay noqonaysaa sadaqo. marka sadaqada meel fog ka fiirinin qof baahan ama wax siiso ayaa ku noqonaysa sadaqada. mid kale maadaama hool ay hayaan talada shanaad aan siinayo waxay tahay in markaasi ay adkaarta la imaadaan ayagoo hooshiina haayo gacmaha ka haayo carabkana inay kala imaadaan adkaarta. runtii way isku wadi karaan ayagoo takbiirtii tasbiixdii tahmiidii iyo hawshii. talada lixaad ee aan siinayo waxay tahay in markaasi ay quraan dhageystaan. waxay sameyn karaan ayagoo hawshii haayo in markaasi ay daartaan quraan kadibna ay markaasi dhigtaan meesha u dhow kadibna ay dhageystaan. waa lix talo oo aan siiyay gabdhaha markaasi ku mashquulsan afurka iyo suxuurta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.